maanta halkan waxay nagu soo gabagaboobay kulan inoo socday 3 maalmood kulankaas oo daarnaa in lagu launch gareeyo oo lagu sameeyo foundationkii Somaliland National Policy khuseeyay dhulka iyo in iyadana la sameeyo frameworkii ama qaab dhismeedkii laga soo dhigan lahaa land policy-gan sharci ka dhigmaya oo ah sharcigii xeerkii dhulka taasoo inagnahay in mashaakil weyn inaga haysto oo dib weyn ka taagan yahay dhulkii oo jira mushkilada ay kamid yihiin in dhulkii uu ku ururay gacmaha ashkhas kooban oo laga yaabo dhul xaddigiisu badan yahay in tiro yar oo dad haysato halka dad badan oo muwaadiniinta kamidina aanay dhul baahaysan haddaba policy-gani waxay soo saaraysaa qorshe guud oo dhulkaasi lagu maamulayo laguna qaabeynayo meelihii noqonayay lagu sameeyo demarcation meelihii noqonaya degsiimaha meelihii noqonaya beeraha iyo meelihii noqonayay magaalooyinka dastuurku wuxuu jideeyay policy-ga guud ee ah dhulka inuu yahay dhul qaran ku leeyahay oo ummadda Somaliland shacabkeeda oo dhan ka dhaxeeya si siman ay tahay inay uga wada faa'iideystaan si siman looga wada faa'iideysto oo qaranku hawsha u qabsadana waxa laga maarmaan u ah inay hesho iyadoo qodobka laga duulayo siyaasad caama iyo xeerar gaar ah oo mid walba geestiisa u khuseeya xeerka dhulka ee iminka jira iyo habka uu dhisnaa waxa weeyaan way koobnayd awooduna way baahsanayd dawladaha hoosena gacantay ku hayeen si waxyaabahaas oo dhan loo daweeyo ayaan waxaanu wasaaraddu ay go'aansatay seminaaradan iyo hawlahanna ay ku saleeyihiin in la helo xeer dhammaystiran oo qabta hawlahan oo dhan oo ah xeer wasaaradda u ogolaanaya inay qorshayso dhulkii inay gacanta dhulkii dawladda gacanteeda ku soo noqon karayo in si siman dadkii ay u heli karayaan oo cid gaar ah aanay gacanta dhulkii u wada gelin